agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee dowladda hoose ee degmada Berbera mudane Maxamed Cali Caabi oo maanta telefishinka caalamiga ah ee Home Cable TV u waramayay ayaa ka hadlay maamulka iyo socodsiinta shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala dowladda hoose iyo sidoo kale maaliyadda oo wax ahaan maamulo. Agaasima Caabi oo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisii ka mid ahaa dowladda hoose ee Berbera ee uu maayirka yahay mudane Cabdishakuur Maxamed Xasan runtii waxa uu hirgeliyay reformka ah inuu koobo maamulka markii hore agaasimayaal fara badan u baahan lahaa haddana sidoo xeerku dhigayo lagu soo koobay ilaa 6 agaasime si uu u hufnaado maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera. marka anagu nasiibana waxaan ka mid noqday reformka lagu sameeyay dowladda hoose ee degmada Berbera aniga oo ah noqday agaasimaha maamulka iyo maaliyadda inaan soo ururino shaqaalaha oo markii hore hadda ka hayeen waxyo fara badan aan hoos keeno waxyo kooban oo lahaanaya structure-koodii wax waliba structure gaar ah ay yeelanayso taasna aan sameynaa oo dhisno shaqaale kasta iyo qof kasta oo shaqaalaha dowladda hoose ka mid ah inaan u sameyno maxaan ka rabnaa maxaa shaqada ay ka rabtaa oo responsibilities iyo debts laga rabay iyo qofka shaqaalihii wuxuu waajibaad u yeelanayay taana inaan sameyno oo iyadana aan wadno kharash bixin waan loo wada hadalay dhammaan anaga supplierska qof kasta waxaan ugu soo dilaa hadda bishii 25 wixii ka dambeeyay waxaan u guda galaa payment inaan bixino hadda waxaan sameynay system ah inaan hal mar soo wada dhijino ina hal mar sii wada deyno waxa ay nagu leeyihiin customers. dowladda hoose ee degmada Berbera ayaa lagu sameeyay isku dhashaandhayn dhinaca shaqaalaha maamulka iyo agaasimayaasha waxaanay markii hore lahayd tiro badan oo agaasimayaal ah balse haatan waxa lagu soo koobay ilaa 6 agaasime. Caabi waxa uu ka mid noqday agaasimayaasha da'da yar ee dowladda hoose haatan majaraha u qabtay. Cabdikariim Siciid Saalax, Home Cable TV, Berbera.